madaxweynaha Soomaaliland ayaa kala soo qayb galay taageerayaasha xisbiga kulmiye maalintii ugu dambeysay ee ololaha xisbigaasi fagaaraha khayriyada magaalada Burco waxa soo buux dhaafiyay taageerayaasha xisbiga kulmiye oo sitay astaamaha musharaxiinta ay taageersan yihiin iyo calanka xisbiga ayaa waxa uu horeyn halka kala hadlay barasaabka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco iyo waliba gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer iyagoo ugu baaqay inay si nabadgelyo u codeeyaan madaxweynaha qarankan waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhawow gobolka Togdheer oo saaka aan cudud iyo xamaasad midna la hadhin waxayna muujinaysaa sida ay doorashada isku sidkan sida ay diyaarka ugu yihiin inay qayb libaax ka qaataan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa si nabadgelyo ah oo suuban inay doorashooyinkaasi noogu dhacaan waa munaasabad qaali ah waxaanu diyaar u nahay inaanu sidii horeba caadada xisbiga kulmiye ugu ahayd inaanu cududeeda muujinno inaanu noqonno xubnaha ugu faraha badan leh ee xildhibaanada golaha deegaanka iyo baarlamaanka inaanu gobolka Togdheer ka soo saarno annagoo cududeeda ku kalsoon waxaan doonayaa inay ka faa'iidaystaan murashaxiinta iyo taageerayaashooda markay khayraadii loo dhamaato xafiisyadoodii iyo dabaaldegoodii inay iska sii wataan wasiirada xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga maaliyadda macdanta iyo tamarta mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye iyo xildhibaano ayaa ugu baaqay taageerayaashan inay u codeeyaan musharaxiinta xisbiga kulmiye madaxweyne waxaa sharaf u ah magaalada Burco iyo gobolka Togdheer inaad kala soo qayb gasho xafladan maalintii ugu dambeysay ololaha doorashada ee xisbiga kulmiye u lahaa bigaynu yaan la idin kala xadin ha kala biiqbiiqina waa saacada waxa hadhayba waa 27 saacadood 3 cashaa ka hadhay maalinta afraadna waa u dareeraynaa guul baynu ugu dareeraynaa iyo gobonnimo taariikhda inoo gelaysaa si nabadgelyo ay inoogu dhacaysaa siday doorasho qurux badan oo nabadii inoogu dhacdo هلا يلالي النظام كا ينبض لبض هلا يلاليه. وحنا دورنا يا بس سبحانه وتعالى وكقول سنتنا دورنا كسوف حدونا حجبنا كبدنا صدق بقول يصدق وإن شاء الله كقول سنتنا كراستا يا كل بيا حقول يصدق واللي بوين كقول سنشري عرفتي نجا يلاليه ما أنت عرفت تطلع عليه عرفتي نجا يلاليه سيدا نهاية الري هذا. جود هامبا مرشحين تقبل ككسر حن تقدر. si gaarana u sharaxan xisbiga kulmiye ha noolaadaan markhaatibaan ka ahay inay Burco horena kulmiye u ahayd maantana tahay adduunka u sheegaynaa inaynu nahay dal ay dimuqraadiya ka hana qaaday waxaynu adduunka u sheegaynaa inaynu nahay dal doorashooyinkiisa hadday tahay ta madaxweynaha hadday tahay ta golaha wakiilada iyo hadday tahay ta golayaasha degaankaba intaba ay dadku doortaan waxa weeye murashaxiinta xisbiga kulmiye ee u taagan doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada ee aynu u soo baxnay haddaynu xisbiga kulmiye nahay inaynu codkooda ku taageerno ayaynu doonaynaa inaynu cududeenna muujinno madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa fagaaraha khayriyada Burco kala hadlay taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer maanta halkan waxaan kaloo inoo nimid inaanu taageero musharaxiinta kulmiye ee ka sharaxan gobolka Togdheer oo kala ah deegaanka iyo baarlamaanka qof waliba wuxuu ku taageerayaa wuxuu hayo annagu halkan waa u oranaynaa iyagana gobolada u maraynaa goboladana waxaan ku dhiirigelinaynaa waan ogahay oo doona maayo codka diyaar baa la tii kulmiye waan ogahay murashaxa kulmiye ka akrar maayo laakiin waxaan u mid inaan idin xusuusiyo inaan maalinta cod kulmiya baaqanin waxaynu ku guulaysanaynaa maalintaasaynu codkeeda marayno taasaanu idina nimid doorashadani waxay ka markhaati tahay taabagalka dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Soomaaliland iyo shacbiga Soomaaliland waan idinku dhiirinayaa inaydaan codka daahin waato aynu cid walba tusayno waxaynu nahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin Mahad Cali Goodir Ariel TV Burco.